السلام عليكم داودyaal kusoo dhawaada barnaamijkeena gorfaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah shaxda Liverpool ay kaga hortagi doonto kooxda Leeds United oo xilli ciyaareedkii ama sanadkii horeba taaka u dhigtay Real Madrid warweyn ayaa ka soo yeeray ninkii Mbappe ahaa waxa leeyahay laba toddobaad ayuu ka maqnaanaya kooxda iyadoo loogu yahay kulamo waaweyn inay markaasi ku soo socdaan Barcelona oo sidoo kale cadeysay موقفkeeda ku aadan saxiixa Julian Alvarez nimankii jabhada ahaa ay wax ka doonatay ciyaaryahan Chelsea waxay rabtaa in Sabreska oo lagu kacay kursigiisa kuleelu noqday awalka hore waa la ogaa kursigan Chelsea inuu kulaa ninkii Maresca marka waxa leeyahay booskaaga waxa way halisay ku jirtaa sidoo kale Barcelona waxa leeyahay ninkii Ronaldo Aruqa ay dib u soo celisay waxa way tababarkay dib ugu soo celisay ninkan waxa leeyahay markaasi go'aana laga gaaraa marka la arko in ninkan uu fiican yahay maskax ahaan ninkii Trent Arnold ahana waa ku dhiban yahay Spain waxa laga doonayaa Ingiriiska dib looga doonayo oo Ingiriiska waxa leeyahay markaasi waa ku soo noqon kartaa Afrikana oo wareegga 16 ayaa la gaaray isku aadkii ayaana la siiyay wareegga 16 martigeliyaasha oo iyaguna helay fursad kale into ninkii Guardiola Real Man City-na isku tashta ayuu leeyahay isku tashta waxa way sanadka 2027 ama xilli ciyaareed ka dambe anu waa sii socdaa Chiesa oo looga gacan haatinayo horyaalka Talyaaniga qodobadaasi qodobo kale ayaad ku maqli doontaa oo shaxdii ugu fiicneed dunida ama ciyaartooyda ugu qiimaha badan ayaad ku maqli doontaa soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib hore noo la joogay like iyo share noogu dadaal haddii aad tahay saaxiib hadda nagu cusubna subscribe-ka noo saar aad baa u mahadsantahay aynu ku bilownay Africa Cup of Nations ayaa markaasi laga ciyaaray kulamo waa la ogaa oo waxa wareegii 16 haatan la soo gudbay marxaladaha gudubka markaas soo dhamaaday wareegan 16 waxa uu bilaabanayaa maalinimada Sabtida ay soo socoto haduu ay baweyne idmo Sabtida Axadda Isniinta Talaadada saddexda afartaas maalmood ayaa markaas la ciyaari doona wareega gruubiyada wareega 16 xul ay isugu soo hareen saddexda afartaas maalmood ayaa la ciyaari doona saddexdaas maalmood gudaheeda ayaa la ciyaari doona haduu ay baweyne idmo hadaba sidee la isugu aaday Mali ayaa waxay ku aaday xulka qaranka Tunisia halka Senegal ay ku aaday xulka Sudan Morocco waxay ku aaday xulka Tanzania South Africa waxay ku aaday xulka Cameroon sidoo kale into Egypt ama Masar waxay ku aaday xulka Benin Nigeria waxay ku aaday xulka Mozambique Algeria waxay ku aaday xulka Congo Ivory Coast iyo ama Diallo iyo xulkiisana Burkina Faso ay markaas la kulantay hadaba sidee wareegga sideeda loo sii dheelaya waxa lagu leeyahay cidda soo guuleysata xulka Algeria iyo Congo oo wada ciyaaraya cidda guuleysata waxay ku aadaysaa Nigeria iyo Mozambique cidda guuleysata halka South Africa iyo Cameroon cidda guuleysatana Morocco iyo Tanzania ay ku aadi karto taasi oo ka dhigan in kulan adag la daawan doono Morocco iyo waliba Cameroon hadii lacala ay isku soo baxaan inkastoo South Africa iyaduna aan la dhayalsan karin dhanka kale sidoo kale into guuleystaha Mali iyo Tunisia waxay ku aadayaan guuleystaha Senegal iyo Sudan sidoo kale intana guuleystaha Masar iyo Benin waxay ku aadayaan Ivory Coast iyo Burkina Faso mid ka soo guuleysta taas oo ka dhigan iyaduna Ivory Coast oo iyaduna sanadkan carcarle oo guul soo noqosho la gaartay xalayto inay ku aadi karto Masar oo ah xulka ugu badan ee ku guuleystay tartanka qaramada qaaradda Afrika ama Africa Cup of Nations caawa horyaalka Premier League hal kulamo badan ayaa ka jira oo la ciyaari doono kulanka markaasi isha lagu hayana wuxuu noqonayaa kulamada Sunderland iyo Manchester City iyo sidoo kale Leeds United iyo Liverpool waxay markaasi la ciyaaraysaa kooxda Leeds United waxa la ogaas kulankii hore into markaasi garoonka Leeds Ellen Road ka dhacay waxa la ogaa in 3-3 ay ku dhamaatay oo ay kooxda kubadda cagta Liverpool waqti dambe laga keenay ciyaarta oo ay dhibcihii loo soo diiday Liverpool oo soo badisay kulankeedii ugu dambeeyay 5 kulanna badisay 7 kulan ee ugu dambeysay markaan waxay rabtaa inay dhibcaha ka qaadato kooxda Leeds United waxa leeyahay Szoboszlai ayaa dib ugu soo noqday maadaama uu ganax ku maqnaa kulankeedii ugu dambeeyay sidoo kale Gegba ayaa isagana shaki uu ku jira inkastoo kaydka lagu soo bilaabi karaa ayaa leeyahay sidoo kale waxa ka maqan ciyaartooyda mataqaanaa Mohamed Salah iyo sidoo kale Alexander Isak Enzo Fernandez Wotari Endo Joy Gomez sidoo kale inta wuxuu macalinka ka fakiraya yaa kala doorata Frimberg iyo Burnley Conor Burnley
iyo Frimberg yaa kusoo bilowdaa daafaca midig ayuu macalinka ka fakerayaa. Liverpool hadda qaab ciyaareed wanaagsan ay ku jirtaa 4 kulan oo markaasi aandhe 5 kulan ay badisay 7 kulan ee ugu dambeysay kaalinta afraad ee ku jirta Premier League oo isugu fadhidaa laakiin Leeds United oo madax adayga ay caawa la kulmaysaa. Wixii kusoo dhamaatana barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaa. Sidoo kale Man City iyo Sunderland ayaa wada ciyaaraya. Ogsoonow Man City waxay rabtaa inay farqiga ay soo yareyso labadeeda dhibcood ay ku celiso halka Sunderland ay tahay kooxaha xilli ciyaareedkan soo dalacay laakiin kuwooda ugu dhibka badan marka kooxaha waaweyn ay la ciyaarayaanna si aada ee markaasi u qabta. Wixii ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaa hadduu eebaweyne idmo. Kylian Mbappe garoomada waa ka maqnaanaya 3 toddobaad. Kooxda Real Madridna musiibo kale ayaa soo wajahday. Mbappe si wanaagsan ayuu markaas u tababaranayay toddobaadyadii la soo dhaafay balse dhaawicii jilibka ahaa ee kulankii Man City uu kaga maqnaa 2 gool iyo goolka laga badinayo kaga maqnaa ayaa dib ugu soo kacay. Taasina waxda baaritaanka ee caafimaadka ee kooxda Real Madridna waxay yeeleen oo baaritaan markii lagu sameeyay waxay sheegeen in ciyaaryahankan uu u baahan yahay waqti badan oo nasiima toddobaadyo nasiima inuu u baahan yahay. Marka waxa la yiri 3 toddobaad ayuu ninkan ka maqnaanaya. Taasi oo ka dhigan in kulamo badan oo muhiima macalinka kooxda ku jirtana uu ka maqnaan karo. Kulamada uu ka maqnaanayo waxa kamid ah Real Betis oo markaas la ciyaari doonaan usbuuca soo socda. Sidoo kale Super Cup oo dhan waa ka maqnaanaya haddii ay ka gudbaan Atletico Madrid oo ay la ciyaarayaan 8 Janaayo iyo finalka oo cid soo baxda Atletico Bilbao iyo Barcelona midka ay la ciyaari doonaan haddii ay sii gudbaan ayuu ka maqnaanaya. sidoo kale kulamo kale kooxda ayuu ka maqnaan doonaa ninkan waa ninka ay ku tirsan tahay kooxda Real Madrid 29 gool ayuu u dhaliyay 24 kulan oo u saftay taasi oo ka dhigan inuu kamid yahay mid kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda iyo gool dhaliyaha ugu sareeya ee kooxdu haatan haysato. Barcelona waxay doonaysaa wali inay jabhada ka qaadato ninkii Julian Alvarez laakiin Atletico Madrid madaxadeeg waxay leeyihiin ciyaaryahankan ma dhabaxayo wax hordhac wada hadal ama niga galeyno ninkan iib maba ahaba maxaa hordhac ka galnaa hordhac waxaan ka galno horti maba jirto ninkan iib maba ahaba. Barcelona waxay rabtaa in ciyaaryahankan mustaqbalka ay ku badato ay ka dhigato oo ciyaaryahan mustaqbal fog kooxda ku leeyahay weerarkeeda ay qaadato. ninkan waa da'yar yahay 25 sano jira wax badan ayuu markaas kooxda Atletico Madrid u qabanaya laakiin Barcelona waxa leeyahay lacagta badan ee haatan la dul dhigay ciyaaryahankan waa wax dhibaato ku ah. kooxda Atletico Madrid ma jirto wax qorshe ay u hayso inay iibiso weeraryahanka 25 sano jirka kaasi oo heshiiskiisa uu dhacayo 2030 madaxweynaha kooxda Wanda Metropolitano ama jabhada Enrique Casero wuxuu leeyahay ma jirto wax iiba oo kooxda mashruuc ay ku iibinayso ciyaaryahankan maba jirtaba. xilli ciyaareedka la liigaha wuxuu qaatay 18 kulan 7 gool la dhaliyay 3 la caawiyay. kooxda waxa way saameynta ugu badan ee kooxda marka la fiiriyana isaga waa isaga qofka caawinaya kooxda waa isaga kooxda waxa uu dhalinaya. saas daraadeed Atletico Madrid waxay leedahay ninkan anaga nagama baxaayo kooxdeena kama baxaayo. warmeeshii Chelsea ahayd waa isku yimid macallin Enzo Maresca waxa la leeyahay sanada 2025 waxay ku dhamaatay isagoo booskiisa uusan ahayn mid nadiif u ah min nadiifa isagoo u ahayn ayuu markaasi galaya sanada 26 uu galaya. hubanti la'aan baa ka jirta baa lagu leeyahay madaxa sare ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ama macalinka kooxda Enzo Maresca kadib natiijooyinkii xumaa ay markaasi gaareen tan iyo kulankii Barcelona ay kaga badanayeen 3-0 natiijooyinkii ka dambeeyay waxay ahaayeen kuwa mataqaanaa niyo jable oo kulankii ugu dambeeyay Bournemouth barbaro ay la galeen. sidoo kalena la arkay macalinkii in lagu orinayay markii uu bedel ku sameeyay ciyaaryahan Cole Palmer waxa la arkay waaxda faniska kooxda Chelsea oo aad u istaagaya ku qaylinaya macalinka dhahay ciyaaryahan fiican ba garoonka ka saartay waxba ma garanaysid aad ku haya. sidoo kale Talyaanigani wuxuu muujiyay markaas niyad jab markii uu tilmaamay labadii maalmood ee guusha ay ka gaareen Everton inay ahayd 28 saacadeed oo ugu xumaa waayihiisa Stamford Bridge inay soo mareen taasi oo uu la jeeday in maamulka uu markaas ka caraysnaa. ciyaartooyda Chelsea ayaa la siiyay 2 maalmood oo fasaxa kadib barbarihii Bournemouth
Moos ay la galeen tababarahana waxa la yiri dib aan isugu soo noqono maalinta Jimcaha si aan kulanka Man City aan isugu diyaarino oo ay xadda ay la leeyihiin laakiin waxa la leeyahay wali kursigiisa ma fadhiyo hadiiba kursigiisa uu fadhinin kooxda Man City-na waxay ku diyaar garoobaysaa inay isaga ay ku bedelato Pep Guardiola ayaa markaas leeyahay waa lagu bedelayaa macnaheeda ninkii Pep Guardiola ahaaba waxa la leeyahay shaki inuu armu ka baxaa hubanti la'aan ama ka baxaa Fabrizio Romano laga soo xiganaya waxa la leeyahay ninkani inuu ka tago Man City hadda waa ay dhowdahay heshiis 2027 ayuu Manchester City kula jira kooxda Man City-na haddaba waxay marbilowday inay si xasiliso booskaasi si ay ugu sii diyaar garowdo inta bar la'aan aysan ba ku dheen go'aankaasina ay hadar ka sii tagaan waxaana isha lagu hayaaba lagu leeyahay macalinka haatan Chelsea ay doonayso inay iska cayriso Enzo Maresca waxa la leeyahay Enzo Maresca Chelsea ka soo tag Man City imo haye yani fiican taageerayaasha Man City haye Enzo Maresca si isku tiin qaybta commentiga aad ba u mahadsantiin wargeyska Isbaanishka Sport loo yaqaan ayaa sheegay in Barcelona ay go'aansatay inay si degan oo taxadar leh ay ku maareyso soo laabashada daafaca Ronaldo Araujo waa tii la ogaa ninkan in Foswadeer iyo maskax wareer ay ku dhacday kadib guuldaradii kooxda Chelsea ka soo gaartay ninkan waxa uu maleynayaaba reer Chelsea cid habaartay inuu isaga ahaa markii Chelsea 3-0 ay ka kiciso habeenkaas la yiri qaladaad buu galayba ninkan oo Rosso xitaa uu qaatay reer Chelsea wuxuu yiri haba idin ku dhaca aniga mustaqbalkayga ku ciyaartay ninkan madax wareerkii markaas uu galay ilaa ay hadda ayuu ku jiraa baa lagu leeyahay ninkan dib ayuu ugu soo laabtay kadib jimicsiga kooxda iyo tababarka kooxda markii uu soo qaatay maskaxdiisa deganeed ama bil muddo ku dhawaad bila oo maskax deganaan uu markaas sameynayay ciyaaryahankan uu san nasiimana soo qaadanayay sidoo kale jimicsi gaar oo guriga gaar ugu sameynayay waxa lagu leeyahay dib ay ugu soo laabtay tababarka kooxda Barcelona maamulka Barcelona waxay leeyihiin waxaan si fiican oo si taxadar leh ula dhaqmi doonaa xaaladda Ronaldo Araujo waxayna sidoo kale inta leeyihiin hadii Ronaldo Araujo uu ahaado mid aad tam u ah oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona diyaar u ah inuu markaas u ciyaaro looma baahnaanayo daafac dhexe inaan markaasi aan doonano waxay leeyihiin hadii Ronaldo Araujo uu dareemo in jir ahaantiisa uu wanaagsan yahay labadii tababar la soo dhaafayna aan ku aragnay xaaladiisa sidaas ay si ahaato waxa way daafac dhexe uma baahnin waxaan u baahanahay kaliya inaan isaga cabdiino ka waranay haduu mar kale xanuunsado ma dhici kara ka waran mar kale haduu xanuunsado ma dhici karta way warbixinta Spain ayaa sheegaysa warbixisyada Spain ayaa sheegay in Manchester United ay diyaar u tahay in ninkii Trent Arnold ahaa oo ku wareegay kooxda Spain ee Real Madrid inay dib ugu soo celiyaan Talyaaniga laakiin su'aasha meesha taagana waxay tahay Liverpool iyo Man United miis galaan way su'aasha meesha taagana taasa warbixinadu waxay tilmaamayaan xitaa kooxo kale intoo Ingiriiska sida Manchester City iyo Newcastle inay si dhow la socdaan xaaladda ciyaaryahankan maadaama tartanka loogu jiro uu si xoogaystay gaar ahaan iyadoo Arnold ku dhibaatoonaya la qabsiga nolosha Spain hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa dhaawacyo ay ku soo noqnoqonayeen Real Madrid ayaa xidigan Ingiriiska kula saxiixatay lacag 10 milyan oo ay ka soo qaadatay Liverpool maadaama uu xor ku bixi lahaa sidoo kale inta daafaca Englandka ayaa kooxda Liverpool Real Madrid u saftay sanadkani 16 kulan wuxuuna sameeyay 3 caawin halka qandaraaskiisa uu ilaa iyo sanada 2030 uu gaarsiisan yahay laakiin kooxaha England waxay doonayaan in ciyaaryahankani ay soo qaataan oo ay kooxdooda ku soo daraan wargeyska Talyaaniga ee loo yaqaan La Gazzetta dello Sport wuxuu shaacinayay in Juventus ay dib u fiirsanayso inay mar kale into ay tallaabo u qaado inay soo celiso ninkii Federico Chiesa tan iyo sanadii 2024 markii uu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Juventus lacag 12 milyan Federico Chiesa aad ayuu ugu dhibaatooday inuu kooxda ka helo boos joogto ah taasi oo xitaa keentay in tartankii Euro Talyaaniga ciyaaryahankan laga tago 28 sano jirkan waxa la leeyahay wuxuu fahansan yahay hawada Talyaaniga iyo qaab ciyaareedka halkaas laga ciyaaro maadaama hore uu ugu soo ciyaari jiray Juventusna waxay rabtaa inay qaab amaaha ama iib qasaba ay ciyaaryahankan ku soo qaadato inkastoo heshiis 2028 oo kula jiro kooxda Liverpool haddana Juventus waxay isku dayaysaa in ciyaaryahankan ay ka saarto kursiga kaydka ee Liverpool si uu u helo fursad uu World Cup-ka adduunka Talyaaniga uu qayb uga noqdo waxa la soo saaray shaxdii ugu qiimaha badnayd ee horyaalka ama guud ahaan Europe oo dhan ayaa la soo saaray oo shabakada loo yaqaan transfer market ayaa waxay soo saartay shaxdii ugu qaalisanaa ee ciyaartoyda
tan iyo December 2025 ilaa iyo kowdii haatan markaasi la sameeyay shaxdan dhammaan marka la isku dardaro ciyaartoyda waxa lagu qiimeeyay 1.35 bilyan lacaga inay isku joogaan haddii shaxdaasi arabtid ina wada gadatid ciyaartoydaas 1.35 bilyan oo lacag waa ina haysataa shaxdan ayaa ka kooban xidigo dhalinyaro ah iyo dunida qabsaday iyo kuwa rugcadaaya waxaana markaasi ka soo muuqday ciyaartoy badan oo magac weyn oo kubadda cagta iyadoo xitaa shaxdaani ay sidoo kale inta ka maqan yihiin ciyaartoy kale intoo wacdara dhigay xilli ciyaareedka goolka waxa ku jira Gianluigi Donnarumma safka difaaca waxa dhameystiray Ashraf Hakimi William Saliba Paul Kubarsi Nuno Mendes halka qadka dhexe yihiin Fatinia Badri iyo Jude Bellingham sidoo kale qaybta weerarka waa Kylian Mbappe oo afka hore ah iyo Lamine Yamal iyo Vini Jr oo labada garbood kala dheelaya waxaana markaasi la yaab noqotay in Erling Haaland oo la og yahay skor walba oo Premier League yeelay inuu burburiyay in laga waayay shaxdan taasi oo ugu dambeyn fajac ku noqotay dhammaan taageerayaasha kubadda cagta maxay kula tahay السلام عليكم هدي أتاي صاحب نوع عصب سبسكرايب تي شيرتا مركاسي نوجود دال ليك تي شيرتا نوجود دال هدي أتاي صاحب نوع عصبنا سبسكرايب كنوصار أدنى ما سنت